السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك وحنا لجوجا داير محمد علمي وكمذا دتك أضياشة مجالات دجن سان كلاود مينيسوتا. وحد داهر ما أنت هلك لو دورتي قدومي عصب ولا دورتي أوركا سومالي إلدر كونسل إن وحنا نقول نتابع سيدي ود على دور الشدن كد على لو دورتي قدومي عصب. بسم الله الرحمن الرحيم. horta ururkan Somali Elders Council wuxuu soo jiray muddo 2 sano labadaas sano waxa soo aasaastay 13 ruux waxay ahaayeen dad la doonayay inay urur u sameeyaan gobol dhig oo ay raadiyaan problemka faraha badan ee haysta dadka Soomaalida 13 kaas oo kamid ahaa anigu oo waxaan ku dooranay gudoomiyahaas aan ku dooranay wuxuu ahayd inuu shaqeeyo muddo 2 sano dastuur baan sameeysanay sharci baan sameeynay waxaan sameeysanay hab oo waxaanu sameeynay kala dambeyn ah waxa ku soo baxay waxa dhamaatay 2 sano waxaanu sameeynay guddi oo loo doortay 5 ruux ah oo soo habaysa qaabka ay u dhici doonto doorashada waxa guddidii ay soo go'aamiyeen bisha 13 in doorasho madax bannaan oo xor ah ay ka dhacdo Sinkaloor oo habka wadankan aan joogno looga shaqeeyaa sidii waxa la soo yaaray dadka magaalada oo dhan waxa lagu soo dhajiyay darbiyada oo dhan waxa yimid dad cadaan iyo Soomaali iyo marti fara badan waxa la isku raacay in meeshaas ay maamulaan dadka cadaanka ah iyo 2 ruux oo Soomaali ah oo ah kuwaas si ay cadaalad u gaadho loo tartamo waxa tartanka rag iyo dumarba soo u tartanay waxa ku soo baxay dad oo aad iyo aad isugu dhawaa doorashada oo fara badan waxa markii dambe ay hadda soo gabagaboobay wax yar ka hor doorashadii waxaan lagu dhawaaqay in ay ku guuleysteen Axmed iyo Lul gabadh la dhaho labadaasna waan ugu hambalyeynaa waxaan doonaynaa inaan dadka barno dimuqraadiyada waxaan kala rabnaa inaanu magaalada barno sida looga shaqeeyo sida loo kala dambeeyo sida xuquuqda dadka Soomaalida ay loo raadiyo shaqo bixinta shaqo dadkan shaqooyinka laga soo leeyahay waxaanu rabnaa inaan waxyaalo fara badan aanu la kaashano ururada la kaashano ka dhisan magaalada iyo hay'adaha jira waxaanu rabnaa inaan ka caawino dadka qaxootiga soo degaya waxaanu rabnaa inaan ayda ka caawino waxaan rabnaa guryaha la'aanta jirta ee HRA inaan ka caawino waxaanu rabnaa inaan waxbarashada iyo tacliinta ka caawino dadka waxaan kala rabnaa inaan ka caawino ardada homeworkada iyo sida loogu waxaynayo macallimiinta Soomaalida aan dabagal ku sameeyno macallimiinta iskuulada waxaan rabnaa wax allaah wixii xuquuq aan leenahay ee magaaladan inaanu intanadoo dhan aan ka qayb qaadano oo aan noqonin bulsho iska habac ah oo degan oo iska fadhida waxa jooga rag badan oo khubaro ah oo magaalada jooga oo Soomaali ah oo mutacallimiin ah inaanu la kaashano oo u yeedhno oo ururka ku soo darno oo kala taliyaan si Soomaalidu ay qaybtooda u qaadato si ay Soomaalida doorashooyinka soo socda ay uga qayb galaan inay meeyarka u tartamaan inay xisbiga dimuqraadiga iyo Republikaanka labadaba ay galaan oo u tartamaan ay noqdaan dad Soomaali ah oo dhisan oo xuquuq ku leh maadaama ay dadka 80% ay noqdeen dad citizen ah oo magaalada degan oo xaq badan ku leh inay xuquuqda raadsadaan oo si ayna u noqonin dad ducafo ah oo iska nool marka sidaa daraadeed waxaan ku hambalyeynaa qolada cusub inaan waxayno markaas waa mahadsantihiin intaas ku soo gudbay aad baad u mahadsantahay